لا نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي idhaahdo ma jeceshahay inaad jannada ilaahay gasho طبعا jawaabtu waa haa kulligeena waan doonaynaa jannadiisa inaan galo ilaahay subxaana wa tacaala haynagu arsaaqo laakiin waxaa jira su-aal ama arrin tala uu bixiyey nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam haddii aad samaysana jannada waad geli in sha allahu tacaala haya bina na keena marka aan jannada ilaahay galle rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka aqriya man qara'a duburi kulli salaad kasta markuu tukado ruuxa aqriya aayatul kursiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm aayaddaa ruuxa aqriya kitaabka qur-aanka haddaad furto suuratulbaqara ee aayadda 255 lambarkeedu yahay weeye kitaabka xusnu muslimka ah haddii aad soo qaado waa beijka ama bogga kontonaad bay uga qoran tahay waa aayatul kursiga laga yaabo qof walba habeenkii markaad sii seexanee sariirta aad gasho inaad aqrido wax badanna lagu sheegay rasuulku sal alla alay slam shaydaanna uma soo dhowaado qofka aqriya uu ku yidhi aayaddaas haddii aad aqrido salaada markaad ka baxdo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkaas jannada ilaahay waxaa ka xiga oo keli ah inuu dhinto allahu akbar jannada waxaa ka xiga inuu dhinto uu geeriyoodo keli ah baa jannada ka xiga bimacnaa hadduu dhinto jannada hore ka gelaya haddaba tani waa garanti uu bixiyey nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam wamaa yantiqu cani alhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ballanteenu waxaa weeye salaad kasta markaad tukato aayatul kursiga akhri xifid sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi waxaa ku jira aayatul kursiga 27 sifo oo min sifaati illaahi subxaanahu wa tacaala 27 tilmaan oo allah iska leeyahay ayaa ku kulansan sifaatul kamaal aayadday ku jiraan sifaadkii naqsiga oo ilaahay loo diidayna aayadda way ku jiraan wa acdamu aayatin fii kitaabillah waa aayadda ugu weyn ee kitaabka ilaahay dhammaantiina aayadda ugu weyn waa aayadda marka asraar baa ku duugan sidaas darteed buu rasuulku u yidhi sal alla alay slam qofkii aqriya shaytaanna uma soo dhowaado habeen walbana la rabaa inaad aqrido salaad walba marka ka baxdana la rabaa in la aqriyo in sha allah ilaahay haynagu hadeeyo inaynu